السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأصحابتك وحرن نجح كجن أم بيوتي سو دوادا walaalahayga meel walba aad joogtiin ciid mubaarak walaalahayga soona dhawaada dhamaantiin maanta waxaa inoo sida xalwadii ciida oo 1 kiilo ah xalwadan ayaan sameysanaynaa maanta aad ku quruxda badan oo ugu talagalay in aad uga faa'iideysatiin ciida waa xalwad xalwadana qiyaas ayaa lagu kariyaa marka 1 kiilo oo kali ayaa maanta sameysanaynaa insha Allah xalwadaas ayaa waxaan jeclaystay in aan la share gareeyo si aad uga faa'iideysatiin insha Allah kana bogo qaybta dambe videoga sida aan u sameeyay xalwadan aad ku quruxda badan bismillaah digsi ayaan soo qaatay dabkan soo saartay xalwadeena ayaan karsanaynaa digsiga aan dabka soo saartay waxaan ku shubayaa 4 bakeeri oo biyo ah ayaan ku shubayaa biyaha waa 4 bakeeri maadaama aan karsanayno 1 kiilo xalwa marka biyaha 4 bakeeri ayaan digsiga ku shubanaynaa insha Allah biyaheena markaan digsiga ku soo shubay sidoo kale waxaan ku dhex ridayaa 2 xabo caleen ah oo caleenta shaaha insha Allah intaas inta isku soo karkarayaan waan sugaynaa caleenta iyo biyaha caleenteeni markay biyaha ku soo karkartay caleentii waan ka bixinayaa sidaas oo kale ayaa rabay inay noqoto kalarkaas rabay biyaha inay noqdaan wayna noo noqdeen sidoo kale waxaan ku shubayaa 1 kiilo oo sonkor maadaama 1 kiilo xalwa ay tahay waxa u baahan tahay 1 kiilo sonkor insha Allah intaas inta isku soo karkarayaan waan sugaynaa warangadeeni ayaan sii qasanaynaa insha Allah warangadeeni ayaan qasanaynaa baaquliyaan soo qaatay sidoo kale waxa u baahan tahay bakeeri iyo bar waranga ah insha Allah warangada waxa bahasha xalwada lagu kariyo warangal magac kale aan ma u aqaan insha Allah baakadkeeda aan tusinayaa waatana warangada haafkii kale ayaan ku shubayaa 1 bakeeri iyo bar waranga ayaa baaquliga saas noogu jirto insha Allah sidoo kale waxaan ku shubayaa 1 bakeeri oo biyo oo aan ku qasayo warangada intaas ayaan isku qasayaa insha Allah warangadeeni iyo biyaheeni ayaan isku qasanaynaa si fiican isku dhexgal waxa waay xoogaa way adkaanaysaa marka warangada biyaha lagu shubo wax adag camal ay u ekaanaysaa laakiin dib ma lahan marka xoogaa yara walwalaaqsidoo kale way jilcaysaa marka warangadeeni iyo biyaheeni ayaan isku qasanaynaa insha Allah si fiican iskugu dhexqas waa kasaada marka isku qasay oo u jeedinsay u soo qurux badnaatay ay jilaac noqoto caana camal ay u ekaatay warangadeena marka soo qasay sidoo kale waxaan ku daray food colorka yellow-ga ah sidoo kale waxaan ku darayaa food colorka guduudka ah oo red-ka ah intaas ayaa isku qasaya warangadii iyo food colorkii si fiican iskugu qas insha Allah dabkii ayaan ku soo noqonay sonkorteena iyo biyaheena way isku soo karkareen sidoo kale waxaan ku darayaa warangadii noo diyaarsaneed oo noo qasneed iyo food colorka isku qasnaa ayaan ku shubay xalwada hadda walaaqitaanka ka joojin insha Allah intay hadda maasha Allah ka noqonayso oo ka bislaanayso walaaqitaankeeda ha ka daalin hana ka caajisin insha Allah hadii kale waxay ka noqonaysaa burbur ayay ka yeelanaysaa ama burbur marka walaaqitaanka ugu roono insha Allah walaaqitaanka ka deynisiiba 10 daqiiqo u horeeyo si fiican u walaaq intay noo soo adkaanayso waan walaaqeynaa insha Allah waa sugeynaa xalwadeeni waa kaasa walaalahayga way noo soo adkaatay maasha Allah in yar ayay u soo bislaanaysaa oo soo karkaraysaa sidoo kale waxaan ku darayaa haaf saliid ah 1 bakeeri oo saliid oo kaliya ayaa xalwada ku darayaa iyo nus litir subaga intaas ku karinaya marka in yar ayaan subaga iyo saliidaba ugu darayaa haddana waxaan ku shubay haafki dambe oo saliid ah qaybtii hore haafan ku shubay qaybta labaadna haafki u dambeeyay oo saliid ah ayaan ku shubay waa 1 bakeeri oo saliid iyo nus litir subaga ayaan ku karinayaa xalwada insha Allah si fiican u walaaqitaankana ha ka joojin insha Allah in yar ayay noogu soo adkaanaysaa marba marka ka dambeysa hadda way soo adkaanaysaa oo way soo taqtaqaysaa insha Allah waa kaasa walaalahayga si fiican ayay u bislaanaysaa way taqtaqowsaa maasha Allah iskana ilaali xalwada fanaanad dheer oo gacmo dheer gasho si ay taqtaqeed ku soo gaarin ama saliideeda marka si fiican u walaaq hadda waxaan ku shubay subag yar ah subag waa nus litir haaf ayaan ugu darayaa insha Allah subag ari subag lo wixii markaas ay isticmaal insha Allah ana waxaan ku karsanayaa subaga lo'da oo nus litir ah kiskis ayaan ugu darayaa insha Allah 3 daqiiqo ka bacdi waxaan ku shubayaa wax yar subag ah sidaas ayaan ku soo karinayaa walaalahayga insha Allah walaaqitaankana ha ka joojinin insha Allah si fiican walaaq si ahda maasha Allah u noqoto xalwada waxa waa walaaqitaan la ku karsamaysaa
haddii aa walaaqitaanka ugu dadaashid xalwadaas waxay noqonaysaa number 1 maasha allah. walaaqitaanka ha ka daynin insha allah. sidoo kale subagii ayaan weli ku wadaa oo haafaaf ayaan ugu shubayaa saa hore in kugu sheegay. sidaas ayay kusoo bislaanaysaa insha allah. marba marka ka dambeysa hadde way soo qurux badnaanaysaa sidaa wada arkaysiin maasha allah. lagama sheekeyn kara alaabtan hadda maasha allah. waa xalwad yar oo fudud hadda waa ujeediin walaalahayga. sidaas ayay noogu soo taqtaqaysaa oo noogu bislaanaysaa maasha allah. sidaas u karkaraysaa. marka dambe dabka wax yar u gaabi insha allah. markii hore dabka u dheeraa laakiin markay soo adkaatay dabka xoogaa u gaabiyey oo waxaan ka dhiga meel dhexe. marka sidaas ayay noogu soo bislaanaysaa insha allah. walaaqitaankana ha ka joojinin si ay xalwadeena xalwad maasha allah noogu noqoto. sidoo kale walaalahayga waxaan ku daray waxaa waaye waa joos aan soo shiiday iyo heel ayaan ku daray maasha allah. waxaa marka laga dejin rabo ayaa lagu daraa caraf ee noqonaysa maasha allah. marka horena waa ku karin kartaa laakiin marka dambe aan jecelahay waxaa waaye caraftii aa kusii dambeynayso. marka waa kaas hadda walaalahayga xalwadeeda way noo dhowdahay. saliidii way soo tuftay in yar ayaa u dhiman insha allah. walaalahayga xalwadeeni waxaan ku daray sidoo kale lowska. waa noo diyaar xalwadeeni. saliida way noo soo tuftay maasha allah. way noo soo bislaatay wayna israacday maasha allah. sidaas hal meelay kasoo wada jeesataa. hadda waxaan ka wadaa hal meel iskugu imaatay dhexda oo keliya ayaa iskugu imaatay. geesii dhan way kasoo go'day. marka xalwadeeni waa noo diyaar maasha allah tabaaraka allah. lagama sheekeyn karo. xalwada waxaan ku kariyey 30 daqiiqo oo keli ayaan ku kariyey kiilada xalwada ah maasha allah. waa 30 daqiiqo ayaan ku kariyey oo dabkana waa u gaabiyey tartiibna waa u kariyey. xalwada waxaa waa dab dhexdhexaad ayaa lagu kariyaa. sidoo kale waxaan ka shukurayaa subagii iyo saliidii. waa kaas wada arkaysiin maasha allah. lagama sheekeyn karo maasha allah tabaaraka allah. xalwadeeni markaan saliidii kasoo golay oo dabka kasoo damiyey hadda waa kaas sidaas quruxda badan ayaa noogu soo baxday. inaba caadi maahan maasha allah. lagama sheekeyn kara alaabtan. waa alaab yar oo fudud oo easy maasha allah. waana 1 kiilo wax badan ma ahan. marka waxaan rajeynaa insha allah walaalahayga inaad ka faa'iideysan doontiin dhammaantiin. ciid mubaarak. soona dhawaada walaalahayga meel walba aad joogtiin. haddii aa hore noola joogto soo dhawow. haddii aa nagu cusub tahay soo dhawow. haddii aad janaalka ku cusub tahay sabkaraab saar si aad daawadaha kooda noqotid. gambaleel kariix. salaamu calaykum.